بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إن شاء الله تعالى وحين كقعدنا موضوع التصبيح ذا كصابسان سيب القرآن كي يسيدوا قصة أروري وحكم ده أي قرآن كتضبط يا فرتن سورة ضوضة كم ده صدحي سيدتنا آية ضوضة كم ده أي واحد تصبيح ذا كقصة أرورتي تضبط يسيدتنا قابض إن واحد تلمام ساترة ده أنت هنلاقي أهمية الربيسية سبحانه وتعالى التسبيح ده هي معناها بلارنا يحنبار سنتهاي إذا وحكم ده وحين كقعدنا بينو تلمامي دونا إن تصبيح سبحان الله أرجاسليا معني سوحويا ربي ووحي أنا عنت من أقل من لقفقيه وتنزيه الله سبحانه وتعالى. والرب سبحانه وتعالى ووحي أنا عنت من أما أقل من لقفقيه تحميد أما حمد لدنا وإلهي الله أمانه كمال كيس دمانتي يا فعاشيس. إذا سبحان الله وبحمده قفك مسلم كي مركو لي وحويان إلهي وحو كدرين يا وحي نقائص ودن وحو الصغية وحي وناغ ودن أريغا كان واللفظ عربك كفضط، لكن آياتك القرآن مركا إنه يقنه وحبضا أيا إلهي فري النبي ينوادك سدى عليه الصلاة والسلام وهرين دوني وحي نوني من لين اتحامه وانا امتحان إن بدن بينو تلمامنا ما قرآنك سأرور إنه إلهي تلمام أيه كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. دوني دا انت نتشوغنو الشر إيا خير بين لين هو اتحامي دونه dadku inta badan sharka imtixaankiisay fahmaan oo qofku markuu xanuunsado ama faqriyo ama ammaan darra ku dhacdo ama mashaakil kala qabsado ama tijaaradu ka khasaarto ama waxaasi imtixaanka dadku inta badan wuu gartaa. waana la arkaa dadka inta badan inay Ilaahay u soo noqdaan subxaanahu wa ta'ala markay dhibta la kulmaan. dhanka kalena waa imtixaan caafimaadka, xoolaha, nabadda, adduunka, magaca, maamuuska, sultada, kullu hada yana waa imtixaan kale. ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ambiyo labada imtixaanba martay oo qur-aanku wuxuu ka warramayaa alcasri الdahabi lilyahuud waxay culimmada taariikhda ku tilmaamaan cusuurtii dahabiga ahayd ee yuhuud soo martay waa cusuur ilaahay uu kulmiyey diinta iyo madaxnimada isugu kulbeertay. waa casrigii taaluud ka soo bilaabmayey ee nebiyullaahi daawuud uu qabtay madaxnimada kadib isagoo nebiya. taaluud iyo nebigii la joogay labay kala ahaayeen, laakiin casrigii nebi daawuud baa ilaahay isugu daray nebinimada iyo madaxnimadaba. kadibna nebi sulaymaan oo imtixaan ballaadhan la geliyey oo ilaahay weydiistay imtixaan aan isaga dabadii cidnaba intuu salaad ama waqti macrad la soo maray wax dhaafiyey ayuu rabbi wuxuu weydiistay imtixaankan ka weyn in la geliyo oo ah boqortooyo aan cid aniga iga dambaysa u cuntamin in lagu imtixaamo. tii baa la siiyey, dabeetana wuu ku guulaystay imtixaanka. markuu ku guulaystay ilaahay qur-aanka wuu ku ammaanay waxaana alla ku tilmaamay nicma alcabdu innahu awaab baa ilaahay ku tilmaamay. nicma alcabd doon fiican inuu yahay, doonkii uu fiicnaa oo noqosho badan. qur-aanka ilaahay ambiyo kaleu tilmaamo imtixaama oo dhib lagu imtixaamay, iyana waa rusul, waa ambiyo. qur-aanku nebi ayuub wax kale inoogama sheegin imtixaankiisii mooyaane. nebi ayuuboo la imtixaamay
وامتحانkiisu xanuun yahay sunnadana culimmadu waxay tilmaamaan axaadiis ay sugaan inuu 18 sannadood u bukay isagana ilaahay markuu imtixaanka ku guulaystay wuxuu ku yidhi fii nafsi suura nicma alcabdu innahu lafdigii lagu tilmaamay sulaymaan inaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu ayaa ilaahay ku tilmaamay waxaanu helnay addoon sabir badan inuu yahay isaguna nicma alcabd awaabna waa lagu sheegay idan labada imtixaanba waa laba la ismariyo ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo labada imtixaanba la mariyey laakiin labada imtixaanba waxyaabaha ilaahay faray inuu adeegsado si ugu guulaysto imtixaanka dhibta ah fasdac bima tu'mar waacrid can almushrikiin inaa kafaynaaka almustahzi'iin aladiina yajcaluuna maca allahi ilahan aakhara fasawfa yaclamuun walaqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun ilaahay wuxuu nebiga faray waxaan ku amray ku dhawaaq gaaladu waxay sheegaysana hawdhegtaagi ka jeeso adugu wixii lagu faray samee iyaguna waxay doonaan ha sheegaan waa saaxir waa kaadib waa shaacir waa kaahin waa kan ay waa la maaga ilaahay wuxuu ku yidhi inaa kafaynaaka almustahzi'iin kuwan kugu jeesjeesaya annagaa kaaga filan baa ilaahay yidhi aday kugu jeesjeesayaan laakiin xataa taada dembi ka weyn bay ku jiraan oo maxay ah aladiina yajcaluuna maca allahi ilaahan aakhara fasawfa yaclamuun baa ilaahay yidhi waa kuwa alle subxaanahu wa tacaala cid kale ku lamaanaynaya oo la caabudaya haddaba nebi maxamed cidhiidhi baa haleelay ka haleelay rabbi waxa laga sheegaya iyo diinkiisii sida looga hor yimi waxaad qiyaastaa adiga inaga waxa laga yaaba inu dhahno dacwad baynu sheegno dadkii baa aqbali waayo bal waxaad qiyaastaa iyadoo adeerkaaga laxmiga ahi uu ku dabagalo oo halkaad istaagtaba markaad tidhahdo war ilaahay ka baqa uu yidhahdo kan yar annagaa dhalay oo waxba ma sheegayo waa been waa dawakhayaha dhegaysanina maxaa kuu dhici lahaa yacni inay dadku wax kaa dhegaystaan daaye haddii adeerkaa uu iskaa daba taago oo markaad wax sheegtaba uu isna wax kaa daba sheegaya nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam cid kale daaya adeerkii abiilahab baa daba taagnaa oo markuu wax sheegaba wax kale tilmaamayay ilaahay diintiisa sida looga jeestay buu cidhiidhi galay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa uu markhaati furaya cidhiidhigaasi jiro walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun baa ilahay yidhi waa ognahay in laabtaadu cidhiidhiyoomayso waxay ku hadlayaan daraaddeed waxay ku hadlayaan daraaddeed inay laabtaadu cidhiidhiyoomayso aayaad kale qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluun falaclaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruk an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanzun aw jaa macahu malak aayaad badan baa ilaahay kaga warramaya nebiga calayhi salaatu wasalaam cidhiidhiga soo gaadhay laakiin malxal muxuu kaga baxayaa ilaahay wuxuu yidhi fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin ilaahay u tasbiixso adigoo tasbiixdaada ku maraya amase ku dheehaya xamdiga alle subxaanahu wa tacaala inta sujuudana ku biiraya ka mid noqonaya waxay culimmadu yidhaahdaan halka kan waxaa nebiga loo sheegay dawaa-un yustashfaa bihi min diqi sadr wa tiryaqun lilaxzaan bay yidhahdaan dawo lagaga caafimaado laab cidhiidhiga iyo wax lagaga bogsado murugada iyo tiiraanyada oo ah subxaana allahi wa bixamdi iyo salaad ilaahay subxaana wa tacaala loo tukado walidaalik ay culimmadu waxay leeyihin aayaddani waxa ay sheegaysaa tasbiixaadku inay yihiin cidhiidhiga qofka muslimkii markuu galo wuxuu kaga baxo cidhiidhiga nafsiga ahi markuu ku qabsado waa wax lagaga baxo qur-aanka dhul badan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam loo tilmaamay in mashkelada haysato waxaa la amray sabir oo tasbiixso ama sabir oo salaad adeegso مثلا في سورة قاف إلهي وحليه فاصبر على ما يقولون وحيكو هضليان يا فحما يا شيغيان يا الله يا دينتي سك شيغيان
النبي عليه الصلاة والسلام كشيغيان فاصبر على ما يقولون بإلهي وهايكو هضليان كصبر وما حيسمه وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود بإلهي تصبيح سو أدقو كده هيا حمدك الله واقو انتانو بريين يا عدادنا انتاني دعين يا هبينكي مفسرين تبرد ماشان صلاة كفسرة مفسرين تبرد الظاهر كذا كفسرة أيا كانت ولا بدي مسألة تلماميني نبت مركي قبصته إن لا تصبيح صدى في سورة غافر إلهي وحلي فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وصبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صبر إلهي يبوه سيبلن كي سوارنب ودم داف ويديسو وصبح بحمد ربك تصبيح سو أدقو كمرا يكده هيا ألم هدنقي في سورة طور با إلهي وحليه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وصبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار السجود وإدبار النجوم في سورة الإنسان يا إلهي وحليه فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وهي علماء يدهدان ميل كسته والنبي عليه الصلاة والسلام انت بدن صبر لفره ودي بأي قبصته خاصة دبت النفسية وحال فري النبي عليه الصلاة والسلام دودي سوينيتين وتصبيح سما الأصل ذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب كاسا الصلاة تصبيح دي التحميد ونوحي كم دين ذكر الله سبحانه وتعالى سيجارة مركا الله فري النبي عليه الصلاة والسلام عديدي حدود دريمه وهذا الحمو يا أفحمو يا عي يا عيبين يا هيدارتين هدي اللي هيو إنه محي تصبيح صدا وحكى له إلهي القرآن كأنه قصة نقلي نبي عديد الجسدية من نفسي بقى بصدي وإلهي تصبيح نسنكو بالبادية وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي الله يونس الصديق القرآن كان معروف كي وحي تلمام يسا إنه كتغي دولكي ولا جوغي بدأوا قالي دونتي لغا توري دبيتنا هبين مدو علماء السي شيغان ظلماتك يدو مدو وبد مدو هدنا وسي قالك حوت هنغريجي فالتقمه الحوت با إلهي مو على لنا واللي بقيه حوت با هدنا اللي قيبان لي هل كاي سيغو كجيره فنادى في الظلمات با إلهي مقديدو كدخ قيلي حكو قيلي حكو دواقي أن لا إله أنت ومفسر دي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إله كريقا بحق لغو عابده سبحانك حمك وفنان تاد يعني ربي ماشن وكجر وحو السوغا يا بي علماء دوليين إن أنا الظلم ألا سميه أنا كقليل ليس بظلام للعبيد وحو السوغا يا وحسك حقي سكيمون نيتهي سادردد بوحلي لا إله إلا أنت إله وذاك كلقا حق لغو عابده سبحانك حمك وفنان تاده إني كنت من الظالمين بولي أنا أنت الظلم فشيء يا أدقى فعل كاغو ما هم حي قدرت هذا الظلم كبتشر بولي يا أنا أنت الظلم فشيء إلهي سبحانه وتعالى قرآن كم حكوت المامة يا مركا سبب النجاة با إلهين وقور ربي وحليه فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلولا أنه كان هدي لا يهيب إلهي لين وهان شري قوة تصبيح صدا قوة كذا قوة تصبيح ذا هدان السداس أهانت وهان شري إلهي لي هدي تالا لا يهي وحكو سقنا الله ماشة إلى وقت دير تمعنى هذا وحويا إلهي وحوت المامية تصبيحات كيسا إلهي كوبد بادي ضيق يعديني كوكشري إنه بدل قضي ومركه هوري
baddu dee geed la ciirsadaana bay soomaalidu tidhaahdaa. baddu qofku markuu qarqoomo waa meelaha aanay jirin qofku inuu rajadu ku yaraato. isagoo bad ku dhaca haddana bahal silqa. ilaahay wuxuu tilmaamayaa meeshaas uu galay inuu kaga badbaaday cidhiidhigaa tasbiixdu watay, tasbiixdiisii inuu ku badbaaday. waxay culammadu yidhaahdaan qofka laabtiisu inay fayowdo oo uu ridaa iطmi'naan uu helo oo uu raalli noqdo waanay noloshu cidhiidhiba ku noqonin iyo tasbiixda cilaaqa ka dhaxaysa bay leeyihin iyagoo aayadda suuratu taaha adeegsanaya. suuratu taaha ilaahay wuxuu leeyahy maxay? fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla guruubiha wamin aanaaءi اlleyli fasabbix waaطraafa الnahaari lacallaka tardaa baa ilahay yidhi. waxaa nabiga lagu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam sabir waxa ay ku hadlayaan eefxumo ah oo tasbiixso adigoo ku dheehaya alle mahadnaqi cadceeddu intaanay soo bixin iyo intaanay dhicinba iyo habeenkiiba baa la yidhi. fasabbix wa aطraafa الnahaar baa la yidhi maalinta dacalladeeda yacni istawcaba tasbiixu اlyowma kullah. habeen maalin cadceed soo bax cadceed dhac wakti kastaa la sheegay awali leyl iyo atraaftaba. tasbiixdaasi maxay kordhinaysaa? lacallaka tardaa, kay tardaa baa la yidhi, si laabtaadu ay u caafimaado, si aad ridaa u hesho, si aad deganaanshiye u hesho. idan cid kastoo warwarhayo ama walbahaar hayo ama cidhiidhi adduunye u hayo ama mushkilad xallin kari waaya, daraa'iqda lagaga baxe koowaad ee ah inay naftaadu badbaado, in qalbigaagu dego, niyaddaadu degto, aada xasisho, adduunku aanu dhib kugu haynin, waxaa laga helaa baa ilaahay tilmaamaya tasbiixda ilaahay. adigoo tasbiix iyo taxmiid la yimaada ayaa laga helaa. xataa culamada badh baa waxay yidhaahdaan salaada lafteeduba da iyaba waa tasbiixu. oo ilaahay qur-aanka markuu tilmaamayo fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smu yusabbixu lahu fiiha bilguduwi walasaal. yusabbixu lahu salaadoo dhan baa lagu iطlaaqay bay leeyihin tasbiixdatan. marka tasbiixda iyo salaada marka horeba waa min ahami maa yashtagil bihi اlinsaanu fi salaatih, waa tasbiix iyo taxmiid. walidalik nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii mucaawiyata bn اlxakam, ninkii salaada waagii hore waa la iska hadli jiray, adigoo salaadaada iska tukanaya ayaa ninkan kugu xiga bal reerkii ka warraad iska odhan karaysay, dhibi ma jirin. mar dambe uu soo degay qur-aan ilaahay uu tilmaamayo waquumuu lilahi qaanitiin, inaan salaada wax kale lagu samayn. nimaan isaga warkaasi soo gaadhin ayaa salaadii ku hadlay, nin baa hindhisay, yarxamuka allah buu iska yidhi, dabeetana waa loo sanqadhiyey inuu warkaa joojiyo. war maxaa indhaa igu gubaysaan buu yihi, akaladku hooyadeedi ka goblantay, haddana hadalkiibuu sii waday. salaaddii markii laga baxay buu nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam. wuxuu leey weligay ma arag macallin ka fiican nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam, ima maagin oo ima dagaalin. wuxuu igu yidhi war salaada tani uma suubamo bini aadamka hadalkiisa wax ka mid a, inamaa huwa atasbiixu waltakbiiru wa qiraa'at lqur'aan buu ku yidhi, xadiidkii muslim ku yahay. inamaa huwa salaaduba waa tasbiix iyo takbiir iyo qur-aan la akhriya buu nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. walidalika culamadu waxay yidhahdaan salaada ilaa 7 meelood oo ka mid a tasbiixaadka ku soo arooraan bay yidhahdaan. kow, iftitaaxiyaadka salaada qaybo ka midi waa tasbiix, subxaanaka allahuma bixamdik waa ta lagu bilaabo, amaba se allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kaiira wasubxaana allahi bukratan waasiila. iftitaaxiyaadka wax ka mid a gaariga KCL 190L ninka liha qaadaa la yidhi, KCL 190L. tasbiixdu markaa salaada waa lagu bilaabaa oo rukuucda waa tasbiixsanaa subxaana rabbiya alcadiim, oo sujuudda waa tasbiixsanaa,
وآيات التصبيح قرآن كما كان أخريسة هذا سؤال ربطوا تصبيح سنكرتا وإمام كما كان للتنبيه هدو قلدم ولا تصبيح صدا وقف كان فاتحة أقونا صلاة الله برا أنتم فاتحة كبرنا التصبيح بكنتم كان كرا ومرك صلاة الله دمية ولا تصبيح صدا إذا وحيد هذا وتدوم يلوض كم إذا صلاة أو تصبيحة هذا صلاة هو نوع من التصبيحات قفك مسلم كي مرك هدي بقبصته نبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة دايني بقبصته صلاة حق يدو دق يشري نبي عليه الصلاة والسلام هذا الضيق يدبت مركي جرته وحل قبحة اطمئنان لغو هلو رضا القلب أتكو هليسو الدقناشي أتكو هليسو حنونا دا ما أنت دوني دا والي أتكو سنيسو دوني دا واحد مغلسة قف كان ستريس باكو دعي قلق باكو دعي اكتئاب باكو دعي ديبرشن با دعي حنونا ترى بدن ونفسانية ودما أنت قفك بني آدم كا سيستم كيسي نيرفها هي هرمون دي سو شقينيين خلخل قليه ما أنت حنونا ذا وقبضنا بني آدم كوبايد هذا أسل كود وحيابها سكاب بلابا مركز دبو بيولوجيكال يسوي بدلا بيد هذا وحاسو حنونا أسلم بين تانو كوجودين وحلا جبوك صدا وحكم ده علايس كستوك وهي وحو كاد جيا أي إلهي لي تصبيح ده هذا الله تماده دنك الله بعد هذا فتنة ده كاجا تماده مالك يسلطة يحوق هي مركز تسبده يدنا وخطر إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى بايل هيري بني آدم كوا قوقه وكبراه واحد قدباه هدو أركو إنو اسكف العضي هدو أركو إنو السلطة هلي مهم القعنتي سباور وهلي هدو أركو إنو هانتي هلي إسنا شيطان كوا أفوفا أفوف كان ولا جبوك سكرة دوني ده إنه ما أنت نقانو dadku maalmaha ay guuleysteen maalmaha caynkana ka dhacay cududooda ay muujiyaan dawladdu waxay soo bandhigtaa maxay militarigeedii iyo waxeedoo dhan yacni soomaalidu maalinta ay xorriyadda heshay hees iyo damdam iyo alla caasidii bay bilowday bini aadamku xataa dadka in badan oo markay guurka uu sallaxmay uu guursado habeenkaasi macsi iyo beliya baas baa la wadaa asalkuna wuxuu ahaa markaad nicmo hesho inaad shukri naqdid nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam 23 sannadood buu diintan waday waa u gaajooday waa u dhib mutay waa u dagaalamay waa u yacni wax nolosha laga soo maroo dhan buu ka soo maray waxa nolosha laga soo maroo dhan hortiisa raggiisa lagu leynayay oo aan waxba u tari karaynin sabranaala yaasir iyo wixii lagu hayay maka raggii joogay buu la noolaa isagoo waxba ka qaban karin cidhiidhigaasa soo gaadhay isagoo ka hijroodo ka tegey ayay ka daba yimaadeen gaaloo dhan baa soo adeegsatay oo meeshii ay joogeen lagu soo wada weeraray carab oo dhan baa dhan ka wada martay waxaasoo dagaalu soo maray ilaahay baa u hiiliyey dabeetana ilaahay wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala aakhir suura qur-aanka soo degta ka suura kaamila إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هذا دركتبه إلهي قوشي سكوتمي إيا ضدك ودين تسوى دقلية يعامل الوفود مركي لقبل أبو قبيل بان نبي قال له إيمانية يرر وصعده أنا روان السلام عليه هذا دركتو ضدك ودين تسوى قلية ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا dadka koox diinta u qaadanaya haddaad aragtid maxay samee baa ilaahay ku yidhi marka ma badhbadhaadhna qaad baa la yidhi mise sidii soomaalida balkaalay canaybay bay qaadeen markay calanka heleen maya ilaahay wuxuu ku yidhi fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba tasbiix aada xamdiga alle ku maraysid iyo istikfaar la kaalay إلهي سبحانه وتعالى يسقى توبة أقبله وهي علماء يدهدان
tanna waxa lagaga badbaadaa alcujbu isla weynida iyo istikbaarka iyo kibirka oo bini aadamku dhankaana marbuu u weecdaa dhankaana dee waaba halkuu ibliis ka bilaabay ana khayrun minhum da halkuu ka bilaabay weeyaan inuu qofku kibro ilaa ilaahay ku yidhi am kunta astakbarta am kunta min alcaaliin lagu yidhi war miyaad isweynaynaysaa mise markii horeba waad korrayso hoos baa lagu soo dhigay bini aadamku hadduu cududiisa arkana wuu afuufmaa inuu dadkaba ka wanyuu ismoodaa ilaahay nabiyullaahi moxamed wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu guulaystay waxaa lagu yidhi markaana haddaad guusha aragtana tasbiixda laazim subxaana allahi wabixamdih subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma kfir lii ayuu nebigu ka dhigay rukuucdiisa iyo sujuuddiisa markii ay aayaadkani soo degeen idan halkana waxaynu arkaynaa tasbiixda mushkilaadku markay jiraanna in iyada la laazimo saa qur-aanku inoo tilmaamayo barwaaqada iyo badhaadhuhu markay jiraanna in iyada la laazimo idan waa furo ka mida furayaasha nolosha haddaad rabto nolol degan inaad ku noolaato haddaad rabto nolol aan warwarka iyo walbahaarku ku badnayn inaad ku jirto haddaad rabto nolol aan waxa khaarijka ka ahi aanay ku dhibin hadduu col yahay iyo hadday colaatay hadday cay tahay hadday ammaan iyo suldo iyo xoog iyo xoolo tahay labada midna aanay ku dhibin aada qof normal oo ilaahay addoomihiisa ka mid a aada ahaateed aada rabto waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya tasbiixda badsada dunidaynu ku noollay kaa'inaadka joogo oo dhami ilaahay wuxuu inoo sheegay inay wada tasbiixsanayaan waa thaqaleynka un ciddan loo taaglaayi ee kolba meeluba cararaysa saa daraaddeed baa ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamayaa 13 aayadood oo qur-aanka ka mid ah oo 11 suuradood ku soo arooray ayaa tasbiixda waxaa loo tiirinayaa kaa'inaadkaasi fi suurati الracd fi suurati اlisra fi suurati اlanbiya tawba saba saad xadiid xashar saf aljumca ataqaabun suwarkaasoo dhan iyadoo loo tiirinayo wayusabixu الracdu bixamdih onkodkaas baa ilaahay leeyahy waa tasbiixsanaya isagoo weliba xamdiga alle ku dheehaya wasakharnaa maca daawuuda aljibaala yusabixna waطayr nabiyullaahi daawuud ilaahay wuxuu leey waxaanu u sakhiray buuraha la tasbiixsan jiray aljibaal waطayr ayaa halkan ilaahay ku tilmaamaya tasbiixsanaya bale ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya tusabixu lahu الsamaawaat الsabc wاlأrض waman fiihin wain min shayin laa yusabixu bixamdih walakin laa tafqahuuna tasbiixahum inahu kana xaliima gafuura cirka waxaa jira iyo dhulka waxaa jira toddobada cir iyo dhulba waxaa jira iyo waman fiihinna waxa ku sugan oo dhami ilahay bay u tasbiixsanayaan wain min shayin laa yusabixu bixamdih shay ma jira baa ilaahay leeya ilaa iyo wuu tasbiixsanaya ee idinkun baan fahmaynin tasbiixdooda cid walbana ilaahay wuxuu tilmaamay maslak u khaasa dariiqo u khaasa ay u tasbiixsadaan inay jirto alam tara ana allaha yusabixu lahu man fi الsamaawaati wاlard wاطayru saafaatin kulu qad calima salaatahu watasbiixah wallahu caliimu bima yafcaluun mid waliba dariiqo u tasbiixsada buu leeyahay baa ilaahay tilmaamaya bale waxaa dhacda kaa'inaadka tasbiixdooda in mararka bini aadamka la maqashiiyo mucjizaadkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam aayaadkii saxaabadu ay aragtay ka dhacday waxaa ka mid ah xadiidka bukhaari cabdillahi bni mascuud uu warinayo wuxuu le walaqad kunaa nasmacu tasbiixa aطacaami wahuwa yu'kalu buu leeyahy ibnu mascuud wuxuu leey waxaanu ahayn kuwa maqlaya cunadoo tasbiixsanaysa annagoo cunayna waa la rurayaa waana tasbiixsanaysa cunadaanu cunaynay oo tasbiixsanaysa ilaahay baa maqashiyey subxaana wa tacaala wain min shayin laa yusabixu bixamdi weeyaan waxaa ka mid ah xadiidka abi dar uu warinayo imaam طabraani soo saaray sheekh albaani saxiixa ku tilmaamayo wuxuu leeyay waxaan fadhiyey xaadir waxaan ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa xalqo isagoo fadhiya
oo gacanta qururux dhagxan yar yar gacanta ku haya way dhagxantu gacanta ku haya ay tasbiixsanaysa buu leeyahay nabigaanu la fadhinay annagoo xalqa fadhina buu leeyahay kelima waliba wuxuu tilmaamay wa fiina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali baa naga mid ahaa buu leeyahay ragga xalqada fadhiyay khulafadaas ka mid ahaa dadka fadhiyo oo dhamina dhagxanta uu nabigu gacanta ku haya tasbiixdeeda way maqlayeen iyadoo la wada fadhiya la maqlay inta nabigu ku mudaynini wuxuu u dhiibay Abi Bakr baa gacanta ku qabtay markaasay tasbiixsadeen qururihi waliba tasbiixdaana dadkoo dhami waa maqlayay buu yidhi Abi Bakr baa nabiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam nabiga haddana wuxuu u dhiibay Umar markaasay gacanta Umarna ku tasbiixsadeen dadkoo dhan baa maqlayay buu leeyahay markaasuu nabiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam dabeetana nabiga wuxuu u dhiibay haddana Uthmaan buu yidhi markaasay sidii oo kale tasbiixsatay markii dambe dadka loo dhiibay buu yidhi qof dambana lamay tasbiixsan buu leeyahay dadka iyagii kale ma tasbiixsanin idan xadiidkani waa xadiid culamadu ay sixadiisa tilmaamayaan waxaanu sheegayaa in xataa qururux ay gacanta ku hayaan saxaabada tasbiixaadkeeda in la maqlayo cunno ay cunayaan in la maqlayo kainaadkao dhan baa tasbiixsada waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaalla Abu Hurayra warinayo nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam nebiyada ka mid ah ayaa qudhaan yaqaniintay markaasuu buulkeed meesheedii oo dhan amray in la gubo dabeetana ilaahay baa waxyooda waxaa lagu yidhi ma hal qudhaanyii inay ku qaniintay ayaad axraqta umma min alumami tusabbix ayaad ummadaha ka mid ah oo tasbiixsanaysa aada u gubtay baa la yidhi idan inagu maxallo shaahidkeenu u soconnaa waxa weeyaan umma min alumami tusabbix qudhaanyadaas meesha daadsanayd inay iyana tasbiixsanaysa ayuha alaxiba tasbiixaadku sida ay muhimka diintan ugu yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala 7 suuradood oo qur-aanka ka mida buu ku bilaabay 114 suuradood 7 ka mid ah ayaa tasbiixaadka ku bilaabma sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlard wahuwa alcaziizu اlxakiim suurat اlxashr iyo suurat saf aaya waaxida bay ku bilaabmaan suurat اlxadiidna ما في الأرض قنباء والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وحكروا قبل أما سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وحكروا قبل أما سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وحكروا قبل أما سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وحكروا قبل أما سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 7 suuradood 5 suuradood oo qur-aanka ka mid ah xamdalada ku bilaabma الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل النور والظلمات يعني أنعام يا بقرة يا كهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يا الصبا 5 suuradood oo qur-aanka ka mid iyaguna waxay ku bilaabmaan maxay xamdala haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala tasbiixdaasi siyaqa ficil maadi iyadoo waa soo aroortay 4 jeer ficil mudaaric iyadoo waa soo aroortay 20 jeer siqatu amr iyadoo 18 jeer siqatu ismi faacil iyadoo maratayn siqa masdar iyadoo 2 goor siqa ism iyadoo 41 jeer yacni 87 meelood bay tasbiixda ku soo aroortay oo 83 aayadood ku jira oo 47 suuradood oo qur-aanka ka mid ah in qur-aanka 114 suuradood 47 ka mid ah tasbiixi ku jirta waxa ay tilmaamaysaa kamiga tirada badan leh ee kayfiyadka tirada badan leh u soo arooray waa daliilun calaa fadlihi wa jalaalatihi bay tilmaamayaan bay leeyihin culamadu tasbiixdu weynideeda iyo fadligeeda iyo cinda allaahi siday qiimaha ugu leedahay ayay sheegaysaa bay leeyihin intaasoo siyaqoo tiro badan leh inay qur-aanka ugu soo aroorto 47 suuradoodna ay ku soo aroorto 83 aayadood oo ka mid ah ayuha alaxiba waxaan leenahay marka tasbiixdu siday muhimka u tahay ilaahay
ambiyada inta badan qur-aan ku soo aroortay in badan oo ka mid a tasbiixdooda ilaahay inoo sheegay. nabiyullaahi moxamed risaaladiisa calayhi salaatu wasalaam in alla soo diray waxyaabaha lagu cileeyay waxaa ka mid a in dadku tasbiixsadaan. inaa arsalnaaka shaahidan wamubashiran wanadiira litu'minuu biاllahi warasuulih watucaziruuh watuwaqiruuh watusabixuuhu bukratan waasiila baa ilahay lehy. waxaa nabiga loo soo diray in ilaahay la rumeeyo oo rasuulkiisa la rumeeyo oo la weyneeyo oo loo hiiliyo oo alle loo tasbiixsada baa la yidhi bukratan waasiila. waxay culimmadu yidhahdaan litu'minuu billah iyo walitusabixuuhu bukratan waasiila baa loo soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxay yidhahdaan nebiyullaahi muusa markuu dalbaday walaalkii in alle nebi uga dhigo, waxay yidhahdaan waa ninkii walaal ugu anfac badnaa baa la yidhahdaa nebi muuse, waayo walaalkii ilaahay wuxuu uga baryay in isna nebi laga dhigo. nebiyullaahi muusa walaalkii markuu rabay in nebi looga dhigo ee ilaahay ka aqbalay maxaa uu ku cileeyey? wajcal lii wasiiran min ahli haaruuna akhi ushdud bihi azri waashirku fii amri. sababtu u dalbanayaa waa maxay? kay nusabixaka kaiira buu yidhi, kay nusabixaka kaiira wanadkuraka kaiira. ilaahayo walaalkayna rasuul ka dhigo igu dar oo igu xooji, kay nusabixak, si aanu kugu tasbiixsanno oo uu iila xoojiyo dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala. rabbow igu dir buu leeyahy. nebi yuunusna waynu soo maray tasbiixdiisii iyo in ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waxa lagu badbaadiyey. qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebiyullaahi muusa oo markuu yidhi rabbi aan ku arko, ee rabbi yidhi yaa arkarimay sida buurtaa eeg, ee rabbi buurta tajalli u sameeyey, ee buurtii dekan dekan noqotay, markuu miyirka ku soo noqday tasbiix buu ka bilaabay. falamaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk. tasbiix buu ka bilaabay baa la yidhahdaa. nebiyullaahi zakariya ilaahay wuxuu weydiistay in ilmo la siiyo isagoo gaboobay. ilmihii baa rabbi yidhi waa ku siiyey. aayad ii yeel baa la yidhi. aayadda waxaa la yidhi 3 maalmood dadka ha la hadlin ramsi mooyaane, ishaaraat inaad kula hadasho mooyaane, hadal caadi ha kula hadlin, laakiin arrin iyada ha ka tegin baa la yidhi. wadkur rabbaka kaiira wasabbix bilcashiyi walibkaar baa la faray. ilaahay ilmaha waa ku siinayaa, laakiin dikriga ilaahay badso. dikrigii markii la sheegay tasbiixdu waa ka mid, haddana gaar baa loo sii sheegay bay leeyihin, oo waxaa la yidhi wasabbix bilcashiyi walibkaar. nebiyullaahi ciisa ilaahay wuxuu tilmaamayaa aakhiro marka la soo taago ee la yidhaahdo maa anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah. maadaa dadka ku yidhi anigii hooyaday ilaahya naga dhigta? waxau ka bilaabi doonaa baa ilaahay leeyay qaala subxaanak maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq. subxaanak buu ka bilaabaya. nebiyullaahi moxamedna ilaahay wuxuu faray qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin. dadka waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi jidkayaan idinku yeedhaya waa kan, ilaahay baan idinku yeedhaya anigoo calaa basiira ku sugan, ana waman itabacanii, aniga iyo intay raacdayba, wa subxaana allahi dheh baa la leeyahy wamaa ana min almushrikiin. ilaahay baan xumo ka hufayaa, inta rabbi ceebaysana kama mid yahi. mushriku waa ceeb leh, ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo magacyadiisuu diiday, cibaadadu alla la siinayuu diiday, rabbi buu ceebeeyey weeyaan. ilaahay markaa wuxuu leeyahy waxaa tidhaha wasubxaana allah wamaa ana min almushrikiin. bale qur-aanku ambiyada daaye dadka kale saalixiinta ah ee ilaahay jannaadka korkoreeya u ballan qaaday astaamahooda waxaa lagu suntay tasbiixdu inay ka mid tahy. inamaa yu'minu biaayaatina aladiina idaa dukiruu biha kharuu sujada wasabaxuu bixamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun tatajaafa junuubuhum can ilmadaaji. ilaahay wuxuu tilmaamaya kuwa aayaadka iyaga rumeeyey, inamaa yu'min biaayaatina, aayaadka iyaga kuwa rumeeyey waa kuwan oo qura baa la tilmaamaya. waa kuwa ilaahay marka la xuso ee la xasuusiyo hoobta iyagoo sujuudsan oo wasabaxuu bixamdi rabbihim baa ilahay yidhi. ilaahay u tasbiixsada iyagoo ku dheehaya
xamdiga alle waan isweynayni ku jirin baa rabbi leeyahy masaalixiinta qura maya ilaahay malaa'igtu inoogu tilmaamo innaa lanaxnu lmusabbixuun bay tilmaamayeen yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ملائكة إلهي وحط المامين التسبيح لازمان أهل الجنة ذاتك خير كبضان له يقول استي إلهي وحط المامين كل واقيا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين حمدية تصبيح إلهي كقور رميه أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك يا رب كل شيء يا سبحانه وتعالى أيها الأحبة تصبيح له دين تمركا مقام سريك جرته ضد كان ضمبه وحيابا بدعة ما بدعة لما وديبها الله يسكت ديين لا لدق علمه لكن واحد مدائن للراعية وحي دين تفرش ذاتك والصوفية وكم بالليلي dabeetana dadka cidda ugu fiicani fariidka ahi waa ninka uun salaada yara haleela markuu ka baxo tira aan la garanin oo faraacaynkaa la yidhahdo subxaanallah inta la yidhaahdo dhameeyo iska taga laakiin nolosheenna waxay u badan tahay in tasbiixaadku ku yaraadeen iyadoo aynu dadkii laga yaabo inaynu ka mashkilad badannahy oo ay ahayd innaga subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiimtu inay nagu tiro badato nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim warinaya abidar uu ka soo wariyey waxa uu la yidhi nabigu wuxuu ku yihi alaa ukhbiruka biaxabi alkalaami ila allah waxyaabaa alla u jecelyaba kuu sheegaa buu nabigu ku yidhi haya noo sheeg baa la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ina axaba alkalaami ila allahi subxaana allahi wabixamdihi buu nabigu ku yidhi kuwa iyagu alla ugu jecel yahay waxaa ka mid a subxaana allahi wabixamdihi xadiiska labaad abidar uu warinaya wuxuu leeyahy nabigaa la weydiiyey ayu lkalaami afdalu warka maxaa u fadli badan nabi wuxuu ku yihi ma stafa allahu limalaa'ikatih wixii alle malaa'igtiisa u doortay aw licibaadih oo waa maxay subxaana allahi wabixamdih idan ayuha alaxiba tasbiixdu ama wardigu wuxuu ka mid yahay alcibaadaat almutlaqa cibaadaadkay culamadu yidhaahdaan cibaadooyinka aan waktiga lahayn shuruud lahayn waxaa laga yaabaa salaad soon xaj shuruuday leeyihin waqtay leeyihin waa la mudeeyey waqtiyadaasunbaa la sameeyey ama tasbiixdu waxay ka mid tahay maxay cibaadada mutlaqa ah fii ayi makaan iyo fii ayi waqtin ba aada la iman karto waxaanu nabigu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam adkaarta ugu fiican inay ka mid yihin سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هوانتي ورديدي ونبي وصار نقضي وحو شاغي نبي عليه الصلاة والسلام انتي ورديني سي وحكا فضل بدن يسوي يلي ويرهنا سبحان الله وبحمده إلهي بان حمكه فيانيك كل هيا ما هد نقيس عدد خلقه tirada makhluuqaadkiisa iyo zinata carshihi iyo ridaa nafsihi iyo midaada kalimaati idan ayuha alaxiba tasbiix ama tacaamka ha noqoto ama salaadba ha noqoto cumar bn lkhadaab maxaa laga sheegayay walow kuntu musabixan la atmamtu salaaddii qasriga ahayd markuu ka warramaya ee ciddii dheeran muxuu yihi walow kuntu musabixan haddaan tukanayo sunno yani haddaan tukanayo anigoo safara tafaralkaa baan dheerayn lahaa buu leeyay walow kuntu musabixan la atmamtu idan tasbiixdu waxaad la yaabto haddaad aragto waa la tasbiixsadaa waxaad istixsaansato haddaad aragto waa la tasbiixsadaa waxaad istiqraabsato haddaad aragto waa la tasbiixsadaa waxaad inkaaraysa haddaad aragto waa la tasbiixsadaa sharcigu intaba wuu soo arooriyey shiddadu markay jirto waa la tasbiixsadaa waa inaga aayaadka soo aragnay walaqad naclamu annahu yadiiqu sadruk bima yaquuluuna fasabbix ilaha yidhi nicmada marka la helo waxaa layna faray faraskeenna ama daabadeenna ama gaadhigeenna markaynu fuulayno inaynu maxaynu idhaahno subxaana aladii sakhara lana hada wama kuna lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibuun
waxay culammadu yidhahdaan tajadud nicam nicmo hadday kuu cusboonaato falamaa afaaqa qaala subxaanak wuu caafimaad qabay dabeetana wuu miyir beelay dib buu u caafimaaday waxay yidhahdaan tajadud nicamka waxaa la yidhahdaa subxaanak waxaa ka mid a markaad ducaysanayso waa laga horaysiiyaa fasabbix bixamdi rabbik wastakfirhu baa ilaahay markaa yidhi waxay culammadu yidhaahdaan haddaad dembi gasho waa la tasbiixsadaa qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun ama ducadii allahuma anta rabbi laa ilaaha illaa ant waxay sheegaysaa in la tasbiixsado markaad wada eegto nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim maalintii 100 jeer ninka yidhaahdaa dunuubtiisa waa la dhaafaa wain kaana midlu zabadi lbaxr saxiixeynku ku yaallay xataa hadday xoorka badda leeg tahay at least xataa haddaynu idhaahno sakaa'irta oo sakaa'irta maxaa ka badan subaxii markaad soo toosto ilaa iyo inta gabalku ka dhacayo ama adaa hadlaya ama mid hadlayaa dhegaysanaysa imisaa khayr aad u malaynaysa waagu markuu baryaaba inuu war bilownaa haddaanad adigu warramayna mid warramaya dhegaysanaysa ama t v ha ka warramaya ama raadiyo ha ka warramayo ama telefoon ha kuugu warramayo ama suuqa ku sheekaysta mid warramaya warkaa imisaad isleedahay baa kitaabka khayrka ku jira imisaad isleedahay base kitaabka sharka geli kara idan waxaad maanta cala alaqal waxaad sakaa'ir gashay haddii lagaaga dhaafayo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim ood 100 jeer tidhaahdo wax la dhaafo maaha kurbada iyo mashaakilku markuu ku qabsado sida nabiyullaahi yuunus uu yeelay laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin waa la sameeyaa ayuha alaxiba cidhiidhigu haddaad gasho waa la sameeyaa idan waxaynu leenahay abaa hurayra waxaa laga sheegaa ibnu sacd ibnu xajar raxmat ullaahi calayhi ayaa wuxuu leeyay ibnu sacd baa wuxuu kusoo saaray bisanadin saxiix can cikrima ana abaa hurayrata kaana yusabixu kula yowmi 12,000 tasbiixa maalin kasta inuu tasbiixsan jiray 12,000 oo jeer innaga tusbaxaynu sidaana waa imisa waa 100 haddaad bar rogto 2 rogto 3 rogto waxaad sodhanaysa wallahi maanta cidi kaama badna soo maaha haddaad 10 jeer rogto maxaad sodhan lahayd dee 1,000 jeer baad tasbiixsatay socay kaa maaha abaa hurayra wuxuu leeyahy anigu 12,000 oo jeer baan tasbiixsadaa markaasuu weliba wuxuu leeyahy usabixu biqadri danbi buu yidhi dee warkan iyo waxaan kale aan akrinayo intaan dambaabay in leegun baan isleeyahy buu yihi tasbiixso ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina farayaa dikriga inaynu badino wuxuu kaloo ina farayaa tasbiixda gaar ahaan inaynu badino yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira wasabixuuhu bukratan waasiila baa layidhi ilaahay dikri badan xusa si gaaraa loo soo tilmaamo waxaa la yidhi wasabixuuhu bukratan waasiila wadkur rabbaka kaiira wasabix bilcashiyi walibkaar kay nusabixaka kaiira wanadkuraka kaiira tasbiixda inaynu badino alaslu inaynu wardigoo dhan badino oo saxaabigii ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ducadayda maanti imisaan ilaahay rasuulkiisii oo adiga ka dhiga wuxuu nabigu ku yidhi intaad doonto nus baan ka dhigi wuxuu sheegay rubuc baan ka dhigi haddaad doonto ka dhig buu yidhi haddaad ka badsatana khayr baad heli siduu u waday ayuu markii dambe wuxuu yidhi haddaa ducada oo dhanba waxaan ka dhigi doonaa waa waqti uu gaar u ducaysan jiray ducada oo dhanba salligaagaan ka dhigi doonaa wuxuu nabigu ku yidhi idan yukfaa hamuk haddaad sidaa yeesho warwarkaaga waa lagaaga filaanaya waxaa hubantiya waa tijaabinay haddaad warwartoo nebi maxamed ku sallida ilaahay wuu kaa qaadaya haddaad warwartoo tasbiixsato waa lagaa qaadaya haddaad warwarto laa ilaaha illa allah tiraa waa haddaad adkaarta laasimto laakiin intaynu adkaar laasimnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna leeyahay imaam albukhaariy kitaabkiisa xadiidku ku khatimay xadiidka ugu dambeeya kitaab albukhaari ku yaalla waa xadiidka kan kalimataani khafiifataani cala allisaani thaqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila alraxmaani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim
saxiixeynka ku soo arooray nabigu wuxuu leeyay laba kelmadood oo carabka ku fudud aan waxba kaaga baahnayn haddaad shaqaysanayso tumaaltay wax qoraysid gaadhigaaga haddaad wadato waad iska akhri karaysaa soomaalidu haddaanu tirinayn ma jecla inuu wardiyo saxiixa maaha wuxuu moodaa haddaanu tirin war rabbaa kuu tirinaya waxba tiradana ku mashquuli gaadhigaaga adoo iska wata waxba ha tirsane subxaan allah ma odhan karta adigoo gaadhigaaga wada intaad jaamka ku jirto haddaad wardido mise aad wardiyi lahayd waad umalaynaysa waxaa laga yaabaa boqolka subxaan allah 1 minute 2 minute in lagu yidhaahdo intaad jaamka taaganta qura ama intaad gaadhiga guriga ilaa shaqada intaad ku jirto haddaad samayso imisaad umalaynaysaa inaad tasbiixsan lahayd guriga ilaa shaqada bes haddaad tasbiixdaada ka dhigto haddaad lugeynaysa iyo haddaad gaadhi wadatayba markaad guriga ka soo baxdo haddaad bilowdo inta aad shaqadaada ka gaadhayso intaad tasbiixsan lahayd shaqadaada markaad iska fadhido haddaad tasbiixsato shaqadaada markaad wadato haddaad tumaalta iyo haddaad laydh samaynayso iyo waxaad doonto haddaad qabanayso haddaa carabka iyo afku waa iska dhaqdhaqaaqi karaan subxaan allahida waad odhan kartaa saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy kalimataani khafiifataani cala lisaan waa erayo carabka ku fudud haqiilataani fi lmiisaan qiyaamaha marka la yimaado xagga wasniga culus xabiibataani ila araxmaan alle agtiina laga jecelyahy ilaahay agtiisana waa laba kelmadood oo laga jecelyahy waa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim buu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba darsiga dantan ka leeyoo dhami waxa weeyaan kow ilaahay kitaabkiisa inaynu dhuganno horta si fiican u fiirfiirino weligaa haddaad mas'alo rabto inaad baadho musxafka faatixada ka soo bilow ilaa birabbi nnaas adoo su-aashaada wata waxay doontaba ha ahaato waxaan kitaab ku qorayn baad soo helaysa inta badan dadku waxma ysidhahaan kutubtii culammada qortay ka baadh kutubta culammada waxaan ku qorayn baad helaysaa haddaad alle dhegaysato wuxuu kuu sheegayo wax ku qoran oo aanaad weligaa fahmi jirin baad fahmaysaa haddaad qur-aanka faatixada intaad kasoo bilowda ilaa birabbi nnaas bal waxaan ku qoran aada eegto xamdiga ilaahay muxuu ka sheegay haddaad eegto subxaan allah ilaahay muxuu ka sheegay qur-aankiisa haddaad eegto laa ilaaha illa allah maxaa qur-aanku ka sheegay haddaad eegto aakhire maxaa qur-aanku ka sheegay dadka waxay isweydiiyaan muxaadaraadka see loo diyaariya ilahay kitaabkiisa oo la akhriyaa laga diyaariya axsan masder loo noqdaa waa musxafkaas oo aad si fiican u akhrido oo si fiican u fahamtid dariskan dantan kaleyo dhimi waa laba shay mar waa in xidhiidhkiina kitaabka alle la leedin uu weynaado caqligiina ballaadhan fahamkiina kordhi xikmad baad heli rabu samaawaati waalardi anzalahu bicilmihi baa ilaahay yidhi aqoon baa alle ku soo dejiyey kitaabun fasalnaahu calaa cilmin baa ilaahay leeyihi idan cilmigaasi kitaabkan buu ku jiraa ninba intuu kala soo baxaa buu leeyahy ninba intuu ku tadaburaa buu leeyahy ninba intuu ka fahmaa buu leeyahy kaasi waa mid ka labaadaan idin leeyina waxa weeyaan abnaa'i saxwa gaar ahaan wardigu wuu yaraaday adkaarta dadku waa ku yartay dadka bar tusbaxaa bidcaa bay yidhaahdeen tasbiixdana way ku dareen tasbiixdana tusbaxay raacday hadday saa noqonayso tusbaxaaga iska sidoo tasbiixso haddii tusbax iyo israacayaan tasbiixdu iska sidoo tasbiixso asalku waxa weeyaan qofka muslimka ahi inuu ilaahay xuskiisa badiyo intaad aadane iyo makhluuq xusi lahayd oo maxaa la yidhi aada odhan lahayd inaad rabbigaa xuskiisa badiso adkaarta wixii kuu fudud aada akhrisato subxaana allahi wabixamdi alxamdu lilah allahu akbar laa ilaaha ila allah laa xawla walaa quwa adkaarta soo aroortay allahuma salli calaa muxamed inaad wardi joogta a maalin kasta yeelatid wardigu waktiba ma qaato waktigaad shaqadaada wadato ayaad wardii kartaa waxa hami inugu raran ee culaysina saaran ee warwardegi waayey ee dhakhtaraa kula wareeray waad ka maarmaysaa waxaasoo warwariye heerye ah rabbaa kaa rogaya adduunka intaad joogto aakhirana kuwa alxaamiduun ayaad ku biiri doontaa ee qur-aanka ilaahay ku tilmaamayo ataa'ibuuna alxaamiduun kuwaasaad ku biiri haddaad aakhiro aad tagtana
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.